حاجة waxaa ka talin jiray salaadiin Soomaaliya طبعا Soomaalidu waxa qabiilkiisu waa maxay Soomaali waa Soomaali imisa sana ku nooshaada la nooshay baajinta 60 sano waa ku dhex jira afbada ma bara maya cabitaanada Kenya okay koolada Kenya waa kan club Sprite Kenya hadda waxaan soo galnay jasiirada Kua PC jasiirka waxa ku yaala minaarad gumeystii baa dhisay xilligaas waa lighthouse-ki qooriga buurga waa qoori caalami waay maraakiib kasto si kasta u weynaato way soo gali kartaa gudihiisa dhererkiisa baahan macnaha gudaha 100 mitir waa waa muuqaalkii sideedaad ee safarkayga badda waxaan ka soo bilownay Kismaayo kadib waxaan soo marnay Koyame Ingumi Chawai Istanbul Cusbo Yaman Chula Madawa Kudaa iyo Shandaa ilaa aan ku istaagnay Baluuni ilaa iyo hadda waxaan ku safarnay qiyaastii 130 kiiloomitir oo xeebaha Jubbada Hoose ah safarkeenii hore waan iskala qaybinay anigu waxaan dhexmaray badda 14 kiiloomitir halka asxaabteedu ay lug ku socdeen 2 kiiloomitir hadda socdaalku uu sii socdaa waxaanu ku wajahanahay buur gaabo صباح wanaagsan maanta hordadaan la tagtay waa ka buur gaabo oo soo laabanaa buur gaabe waxa doona meel aad u qurux badan inaan tagno badda naga caariday dadka aan faahfaahsan caarido waxa weeyaa badda xalay ilaa xagaas ay joogtay waa ka kan badda xaga male ma garat magaalo walba hadda soo marnay Khooriya dekad buu baahantay dekad ruta ka hadalna hadda waxaan ku sii wajahanahay jasiiradda Kua PC halkaas oo ka taagan lighthouse-kii buur gaabo hadda waxaan soo galnay jasiirada Kua PC jasiirka waxa ku yaala minaaradaas oo ah gumeystii baa dhisay xilligaas waa lighthouse-ki soo taqana nabadoon iska waran jeelani jaale ma jeedo ma sha Allah Xuseen jaale alxamdulillah soo dhawo jasiirkan Kua PC ana pida soo wanaagsan kuma Kua PC la dhahaa waxay Kua PC waxay u dhigantaa jasiirka waraabaha PC waraaba Baajuun Kiwana waa jasiirki Kiwa waa lugha ya Kibajuni luqadda af Baajuuniga Kua PC jasiirka waraaba munaaradan waxaa la dhisay 400 waxaana dhisay Talyaani 600 Talyaani dhisay ujeedadana u dhisay munaaradan kan kali maaha munaarada mid xagga ku yaala midna xaggaas ku taal waayo maraakiibta soo gali jirtay awal de casri ma jirin macnaha irida markay ku soo galaysa maraakiibta ka soo gala meel fog uu ka arka munaaradan koora u soo baxa munaaradan u soo cabiraya marka dhaxdaan uu imaado munaarada kale dhinacaas ku yaala soo qabana maraakiib weyn soo gali jirtay oo ila burgaba gudaha ku jira ilaa wuxuu ku dhamaanaysaa de lagta agteeda qoorigan buurgaabo ma fahamtay maraakiibta waaweyn way soo galaysaa ilaa meeshay rabaan way tagi karaan qooriga buurgaabo waa qoori caalami waay maraakiib kasto si kasta u weynaato way soo gali kartaa hadda waxaan ku sii wajahanahay deegaanka Kidivani oo buur gaabo u jira qiyaastii 15 kiiloomitir waxaan dhexmaraynaa gacan badeedka sidoo kale loo yaqaano Quuri waana kan ugu weyn Soomaaliya halkaas oo maraakiibta waaweyn ay si fudud ugu dhexmari karaan halkaan aan ku soconaa waa qooriga buur gaabo maanta aan soo booqanay waa qooriyaasha markii laga soo tago Istanbul iyo Kudaa qooriga ugu dheer waaye dhererkiisa markii la dheer ahaan waxa waaye ilaa 60 kiiloomitir oo dhererka laga bilaabo irida buur gaabo ilaa meesha ku dambaysa 160 kiiloomitir ilaa 65 kiiloomitir waa gudihiisa dhererkiisa baahan macnaha gudaha 100 mitir waa biyihiisa oo gudaha oo markab kasta soo mari kara markab kasta fariisan kara meeshaas hadda aan soo marnay waa meeshii markabka Ingiriiska ugu weynaa markii Talyaaniga ay isdagaalayaan oo
hubki saarnaa hantida saarnaa ingiriiska markuu uu yaabay hantida inuu wuxuu ka baqay inuu ka qabto talyaaniga meeshan ayaa lagu dejiyay gudahan ayaa lagu jir cid gaari kartana ma leh waa 100 mitir waa gudaha halkaas waa khooriga hadda ku imaanay waa khooriga buurgaabo aado halkaas soo marnay khooriga weynaa meesha hadda taaganahay waa isgoyska khooriga ku kala leexanayo khooriga halkaan qaybta hadda uu aado waa qaybta Kidibani Busbuso saddex lugood khooriga weynaa waa halkaan waa khooriga qaybta yareeda u leexanayo ilaa iyo kudaa iyo dhankaas u aadaya iyo caanoole aad u weyn asna لكن مال حكوا سحر ما خوري وينا لكن هالكان واي ما دام هالكان هذا هذه كنن هذا أنت هذينا وحان تجدونا كذباني أو نوجدو ماشي نوجدو بقى هذا وحن سوق الناي تولد كدفاني عرفت واحدي سوا ما هي وفاجوني واي عفاجوني واي نمرية كده marka badda ka soo degnay waxa la kulanay mid kamida deegaanka degan Kidibani magaca waa sax Kidibani soo Abdullahi Kidibani weey Abdullahi Ali baa la yiraahdaa Kidibani wax weey 17 sano aan deganahay waa deegaanka umad baa deganeed baajuun la yiraahdaa baajuunta lagu Kidibani baana yaan ugu imaaday ma taqaan macnaheeda Kidibani baan u aqaan aniga umad oo dhan ay u taqaanaa waa gartay waka labada waxa ku jirna hadda jasiirado kale xagaas waxa naga xigta badii laba khooriga dhexdiisa ku jirna xaga badda naga xigta xagana badda naga xigta bal biyo macaan xaga ka xigta biyo macaan waa saddex lugood weey macnaheeda saddex lugood ma imsa kilometer adigu shaytan waa tasodon ma ya sodon ma dhamay ilaa 15 okay saddex lugood saas oo taqara waa hagaag imsa ku digteen xaga waa hadda afar qoys baan hadda ku deganna halka gadaasheeda guri cusub baa dhisaysan guriga waa annaga dhisnay waa dhismo cusub aan hadda dhisaynaa macalinka dugsigaan u dhisaynaa ma sha Allah oo dugsi quraan hadda ma qabtaa bal anaga qoryahan xaga ka heeto waxaan ka keenay badan ka soo gurnay kuwan badan ka soo gurteen qandalka weey qoryahan oo dhan kuwana waxa weey waa xarigaasan ku xirxirnay waa qandalkii aan badan ka soo gurnay qaabkaanan u xirxirnay ma sha Allah يا مركز دسمة أفرت الرياض بس أفرت الرياض مجمع بانكو دسنا وكا وهيك واتساب يو كول ما استعمالشان بس ماي انترنت ما له حاجة ولا هذا أدو مرمر أيان دويتا أتينا هذا اللي تاجي يا نجح ليس حتى موبايل الذي يرير كهابا وحوي يا دبء شركة ده واحد شركة ده ما أقانا شركة هرمود هرمود أنا عندي واحد سوكو شقيو هرمود حاجة أنا هذا مركو هريتو إنه حاجة كانت إنترنت ماشان وحول بولا جه لهي مركز دمبرة وين قاعد قارمة مدة أدو دور أسبوع لقى جوجا حاجة قف كاس وعي نمبر كاجو حنتعرى له هوسينا دقو سيا لقاعة ويو دكسيجان ده قرآن كلا دسيو بحال نمبر كيجا لقى سوى هيا مش خينها واشقين هيا اوكي توس ما انترنت مش غير صح حتى تنادوا واشغينيسا واتساب ملا نمبركيس واسان دغيا وعا تولada halkan wada ka gashaa halkan wada ka baxda halkan wadadaas yaa soo gashay wadada tanana ka baxay hay wax way dhir baa qabsatay geedi baa ka soo baxay annaga hadda inta yartay yaa wax way gacan ku bixinay idinka gacanta ku sameeyay kan annaga gacanta ku sameeynay waan gartay waka waa hawl badan weeyaa wadooyinka kale maxaa ku dhacay wadooyinka waa go'aan wadada xagee tagtaa marka wadadan tuulada tagtaa inta waxay buurgabay aadaysaa intana waa baday galaysaa intana waxay badhadhay tagaysaa wadadan yarun waa 1 mitir waxa kale waa kaymoon waxa kale ma leh hadda waxaan soo galnay beeraha alada deegaankan digirtiya ka baxda ayaan baa cunay ayana ka cunay waka mirihii soo baxay waa faaruq weey ma digirta anaga soo wanaagsan ma kewe digirta wata miraha waa kan digirta ayana ka cunay ayaan baa midahaya waa kuwa qalalay soo ma aragtay
كوي ayagoon miro yeelan kuwa كوان كلا قلالين واك ها واكن كوا كلا kaasaa galay ayaan baa sidaas yaa waxaa u baahan tahay wax loo rusheeyo soo ma waxaa galahaya bahal baa galahaya waa la geliya wax alla wixii la tabca hadda muddo 7 sano 6 sanaba waxa weeye habuuq ma ogiye iyo wax loor ma ogiye wax saas lagama helayo waad dhimanaysaa waxaad ku dhimatayna waxa weeye cadowgaasa waxa weeye beertada imsa dharkiisa beertayda waxa weeye 3 kaambo weeye 3 kaambo haa in la turjuma jeclaa 3 kaambo macnaheedu 3 kaambo waxa weeye adigu kaambadi waa 200 tilaaba galay baan siin doonaa kan ma diyaar maysis kan karaana soo kayar galaydan kan ugu fulo galayda waa kan tan ana qaana ani la dubo dadna waxay sameeyaan way huuriyaan bismillah galay baa la yiraahdaa galay haa afbajun كسيكي باجون انت سبك تقرا امس سنه كنا شاد لا نو شيء باجونتا باجون 30 سنه waa ku dhex jira afkooda ma bara maya xogo adoo eri badana adoo dhagta waan ka garanaya xaaska baajun oo Soomaali la kula hadasha waxa la kulmay ciyaalka ku nool deegaanka magaciisa maxaa la dhahaa deegaanka magaciisa inta magaceed كليفاني مقع كلماني مودي كوبا واي وعيالنا ساس بريش اوكي قفك كو غوليستا قفك بديا او wax badan sameey ayaa badiyay adii blow magaca horta عبد الفتاح صو عبد الفتاح let's go 2 3 4 5 6 7 8 9 10 كان ها magacaadna magaca خالد يدي قعنتها هاي وين اقول ستة دولك كوديغا مس قعنتها سجعش ها كو لابا صدح محمد كاله مقعه ها بولي ما تحسن يدي قعنتها وين دير وين صدح افر محمد نو كان عبد الفتاح اني اديق وايا marka yaa guuleysanaya toban badan tahay ma naga qaleysay 3 keetan لا إله إلا الله كبدنا في ريستي عيالك أنا عاد فتح فاينل كاسكو صباحني فاينل ما هنا وهاي كو لا صدق أفر كم وافدس يدي بقعت يدي أنا كله إذا كمان شقنا ملاك روح وضعنا تصنع حنتعنا سيدو كله ضدك كل نوع ماشي تصنع ضدك إذا يددك ما قلت أما ستك عمد عبد الله نمبرك هوس فندقية ما قلت ولا قول له صو حرير دون إن شاء الله واك ميكروفون كوكو ولا قول له صو حرير دون إن شاء الله مرك واك أنا واسيس عنا بورقة كلها برنا نمري مقعد بورقة حتى أركض أنت روح هذا ويا ما ست مسوي كنا بورقة شيء 2 كيلومتر أدو شنو 2 كيلو واه سوف كنا شيء 2 كيلومتر قف 7 متر تو كده سان وما ست ما هذا ما سند أفبانشو ما سند كوهاري وما ستي شكرا كوهاري hadda waxaan soo gaaray burgaabadii hore dhismahan waxa weeyaan waa dhismihii salaadiintii Soomaalida ka talin jiray burgaabadii hore halka hadda socono anteenada xagga ka taagan waa burgaabadii cusub ha adinku xidhisatay 100 sano 200 sano كير أنت الدرب كحنات حراق الدرب هذا هو نتصدونه للأسف ملا تاريخي كانوا النعبة هاي هنا بيرا لقدس يقرأ نقدني كبير تذكرة يقرأ قفول لكن ملا تاريخي الدرب كوركس حاجة الدرب هاد حاجة نقوليه هاد ما قرأت هاي هنا كدك تام بير فمي وغلط قرأت هيستوريكا ملا كده بير كسبان كسر لكن هيستوريكا إلى عشرنا حاجة ما حكيت لنا ترى سلاطين صوماليا ما قرأتي طبعا الصومال وحده قبل كي سامحي الصومالي والصومالي فهمتي سلاطين صوماليا كتريتر مدة فربضة إنتان قميستها إيمان ها قميستها شبيه نمر حراقي أنكو نتصيا يا حراقي دربيكا قده هنقنو ماشي واكا قرق الساس ويان ويجي سوقلا أنا كبقني إنه وحكو تشرو أوكي واكا طاقة ياري لهد dhismahana waa kan inta yar weeyaan gurigu marka haraagii hore weeyaan halkaas daaqada aan arkayno waxa weeyaan darbi ayay lahaan jirtay banaanka noo saara waxa weeyaan
wax walba ka baqan karnaa gurigan inuu nagu dumo gurigan waxaa laga dhisay sidii hore caano iyo shub soo baxa هذا waxaa soo gaarnay magaalada Buurgaawo taqriiban waxa ku noosay dhahan 1000 qoys ilaa 1500 marka 3 ku dhufo ugu yaraan Soomaalida 3 way ma garto marka qoys lagu dhahayo hooyo aabay hal cunug 3 ku dhufo ugu yaraan magaalada intaas ku nool marka waxaan rabnaa in cabitaan iyo wax ka iibsano السلام عليكم وعليكم السلام ولا نالك ما soo dhacay يا walaal السلام عليكم سودو انا قد سهنا لنا ما شاء الله ما قواي كون halka xabo كون waxa way 7 aan gadaya 0.7 faash asaana gadan 7 agada law sintiya ka raadinayna meel fog ka imata Kenya cabitaanada Kenya okay koolada Kenya way kan club Coca Kenya Sprite Kenya kana ma qani Bravia Porvifa زيتون كلام كينيا زيتونka Kenya la waayeenaha ما كينيا يمسن يجي 6 كيلومتر 9 kilometer la iska dheh اوكي waayo raskambuni markii la tagay la xaduudka waxa waaye magaceediga waa taqaan lagu sheegay هل دولار ما hadoo dadka laga gadaa laakiin idinka markii sida ciidanka oo kala qiilayo waa laga siiyaa laakiin idinka dad qiilayo ma tiin اوكي لكن مقالة قاركود بهل دولار كسيسا doorar ka siinaa انا وانا غليسا ديسكاونت ونو سمي فنح وما ستر magacayga waa Cabdullaahi Bulqaas Maxamed magaaladan aan ku dhashay Buurgaawo 1958 baan dhashay magaaladan Buurgaawo waxay ka tirsan tahay degmada Badhaadhe gobolka Jubbada Hoose 10 jirkaygii runtii xoogaa waa ka tegay anoo yar laga kaxeeyay dugsiga dhexe iyo dugsi Qur'aan waxaan ku soo bartay Kismaayo kadibna 18 markaan gaar amrigeygii waa ku soo noqday ilaa hadda waan joogaa markaan soo noqdayna kulli waxbarashada halkaas aan uga haray waxaan galay farsamo kale kalluumaysi iyo beero kalluumaysiga aad baan ugu dheereeyaa heer waxaan gaaray hadda inaan noqdo isduwihii wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda Jubbaland State ee degmada tan Badhaadhe anaa hadda ka ah marka heer aad u sareeya baan ka gaaray aqoonta badda gudaheeda iyo korkeedaba iyo noolaha ku jira oo aad iyo aad aan heer uga gaaray beerahana waanu ka shaqeynaa laba xilli bay leedahay anagu waxaan leenahay gu iyo jiilaalka martay badii baa inoo furan guga markay noqotana waxaanu beeranaa beero galley sisin digir waxyaabo fara badan baa nooga baxa beeraha inkastoo meelaha ugu muhiimsan wax kasta ay ka baxaan aan gaari karin hadda xogaa sida xagga nabadgelyada awgeed safarkeena waa u dhamaaday waana ku mahadsanid daawashadiina dabcan xalqado badan waaye waa Jubbada Hoose laakiin waa sii socon doona horta waxaan u madcelinay teamka aan ku wada safarnay Jubbada Hoose oo dhan waana mahadsantahay aniga ilmaamina subscribe like comment